silima filana meeshaan shabeel ordaya oo soo galay dadkoodii la soo cararayaan iyagoo ka baqay inuu markaas shabeelku wuxuu gal xigala elevator-kaani kadibna gabadhaani wiilkeeda meesha ku jiraan habartay ka baqaysaa balse wiilka kama baqayo ayagoona markaan indhaha isku saaray kadibna wiilka gacanta uu soo taaganaya shabeelkan sidoo kale gacanta uu soo taagay sidaas inay saaxiibo ku noqonayaan balse intaas waxba ma tarayso hooyada shabeelka ka baqaysaa kadibna isagoo iskaga soo tagaya ayagoo wiliba korkooda uusan taaban markaas ciidankan meesha imaanaya wilibana ayagoo rabaa inay dilaan miskiinka ama inay qabtaan markaas isagana boodboodaya ilaa ugu dambeyn uu meeshaan soo fuulo adigana daawada hayga ilaabin muuqaalka ina like inuu saarto mar kale silma filana shabeelkii meeshaan ayuu fuulaya wilibana isagoo naftiisa inuu badbaadsado markaas ay hal mas tartiib meesha waxaa kasoo muuqanaya xariif kale oo raba inuu badbaadiyo shabeelka sababtoo ah shabeelkii ninkaas si fiican ay isku yaqaanaan shabeelkan markaan naftiisa dhibaatooyin ay ku jirtaa ma qatar aad iyo aad u weyn markaas uu hamar meeshaan kasoo muuqanaya wilibana isagoo ugu wacay magaciisa kadibna ku dhahay kaale aniga imo markaas buu fakara kadibna xirgaan ayuu tuuraa kadibna uu raacaya si uu badbaadsado shabeelkiisa ko idin le baqayeen cabsanaya sidoo kale way argagaxayaan waxay isdhahay ninkan maxaa ka qaldan waraba shabeelka inuu badbaadiyo sakani waxaan dhihi karnaa qof ay ku dambeeyo bini'aadamtinimada isku day inuu badbaadiyo ama inuu caawiyo ayaa waxay tahay xayawaan isagoon magaciisa oo ku wacaya sababtoo ah markuu yara isaga ayaa soo barbaariyay ama isaga ayaa soo koriyay shabeelka markaas uu shabeelkana meesha tartiib usoo fuulaya wilibana isagoo raba inuu badbaadiyo wiilkaas inuu ku badbaadaya